waxaan si gaar ah madasha uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo isu xilqaamay inuu waqtigiisa qaaliga ah qayb ka siiyo shaqo abuurka ay wado wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska iyo sidoo kale ururka dhalinyarada ee Soonyo maxaan idhaahdaa oo qayb weyn runtii nagala qaatay oo aan aad ugu mahad celinayo ilaahay baa mahadle maanta inaynu jirno dhamisu nimaadno oo xeerkii shaqaalaha rayidka ah aynu ka hadalno inagoo dhammaantan hareeraha ka taagan xeerka shaqaalaha rayidka ahi waa xeerka aynu ka soo wada tashanay shirkadaha madaxa bannaan waan u yeedhnay dumarka gaar baan ugu yeedhnay looyarada gaar baan ugu yeedhnay dadka naafada gaar baan ugu yeedhnay shaqaalaha hay'adaha caalamiga ka shaqeeya oo dhan xafiisyadooda HR-ka waan u yeedhnay marka waxaas oo dhan waxay wada tashi ah waar walaal xeerkan ururada shaqaalaha waan u yeedhnay maxaynu ka bedelnaa maxaynu ku darnaa gobolada waan ka soo qabanay marka maanta halkan waxaynu fadhinaa in farshankii u dambeeyay la discuss gareeyo marka madaxdu inoo furtay wasiiradu inoo furaan inteena kala la isku hado oo maanta iyo bariba inta laga shaqeeyo aynu gabagabayno oo golihii wasiirada hadii la dhaw wasiirkii xilka golayaasha maadaama wasiirkaygi maqan yahay shaqada ceelaf weyn oo xilli dastuurku inoo joogo oo bahalkii la xeerkii la qaado haddama halka maxaa ku jira halka walaal waxa ku jira jimciyaasha shaqaaluhu way shaqeeyaan xaqna ma laha shaqaaluhu shirkadda dhibaato u geystaa si loo xidhan lama yaqaan iminka annaga waxa noo yimaado weeyaan mid shirkad baa waxay keenaysaa shaqaalaha jaaniba immigrationka lama soo mariyo annagana lama soo mariyo markay isqabsadaan ee shaqaale kii ajaanibka la keenay ka baxsaday shirkad kala tago ayay noo yimaadaan annaga waxaasoo dhan waxay sababaysaa gaabka jira Soomaali xaqiiqada ah waxa kale oo walaal jiro gacanta aynu ku haynaa xeerkii hawlgabka pension loogi kaasoo shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha kala baan fici doona waxa kale oo aynu gacanta ku haynaa xeerkii la odhanayay mataqaan shaqaalaha maxaa la internship policy-ga shaqaalaha sida loo carbiyo waxaasoo dhan waxay qayb ka yihiin shirkii golaha wasiirada maalintii dhaweytoole laga hadlayay ee ahaa shaqo abuurka iyo iska wax u qabsada marka maadaama dawladdu iyo xisbiga iyo madaxweynaha xilligii la ballan qaaday ahayd in shaqo abuur la sameeyo chain-kan isku xidhan oo dhan wuxuu caawinayaa shaqo abuurkii sida aad la socotaan wasaaraddu iyadoo tixgelinaysa shaqaalaheeda ama dadka muwaadiniinta ah ee reer Soomaaliland iyo sidii ay shaqo ugu abuuri lahayd annagoo ka duulayna baaqii madaxweynaha qaranku waqtigii campaign-ka uu soo jeediyay oo ahayd yeerkiiba ama sanadkiiba inuu 16,000 oo shaqaale ah waddanka loo suuragelin doono in shaqo abuur loo sameeyo waxaanu diiwaan gelinay dadka ajaanibta ah ee dalka Soomaaliland ku sugan iyo shaqooyinka ay kala hayaan wadamada ay ka kala yimaadeen iyo aqoomaha ay leeyihiin ruuxantii waa nala wadaagi doontaa biidmillaahi tacaala uu soo dhamaaday rakoob inaanu diiwaan gelino shaqaalaha rayidka ah annagoo ujeedadayadu tahay inaanu ogaano Soomaaliland 3 milyan iyo badh baa ku nool baa la yidhi shaqaalaha dowladda waa la yaqaanaa inta uu yahay waxaynu garan karnaa inta aan hanaqaadka ahayn in la ogaado shaqaalaha rayidkii waa intee si uu u soo baxo numberka shaqo la'aanta dalkeena u jooga taas oo iyadana xal ay xukuumaddu markaa iyadoo kaashanaysa shirkadaha iyo kambaniyada runtii qarankan in badan tiirdhexaadka u ahaa inay suuro geliso sidii shaqo loogu abuuri lahaa inaad insha Allah isa soo diiwaan gelisaan waxaan rajaynayaa inaad heli doontaan adeeg hufan oo hawl yar oo laydinku raali geliyo meesha laga shaqeynaya ama lagu qaban doona waa wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxaanu ku adeegaynaa amaawilta madaxweynaha qaranka oo nafaraya inaanu daryeelo shacabka reer Soomaaliland ilaahay baa mahadle maanta inaan isugu nimaadno tababarkan halka maalin qiimaha badan leh ee lagaga hadlayo daryeelka ilaalinta caruurta xuquuqda caruurta oo ay tahay dhammaantiin halkan fadhida intii ka wada shaqeynaysa arrimaha caruurta taasoo wasaaradda muxuu ahaa arrimaha iyo bulshada iyo shaqada working groupkiina shaqeeya aad u tihiin focal point taasoo waliba aad ugu mahadnaqayno in imika wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda cadaaladda halka fadhidoon maqlayo
wasaaradaha dawladda ka shaqeeya arrimaha bulshada inaanu shirar joogtaa iminka aanu isugu nimaadno si markaa xidhiirkii hay'adaha dawladda wada shaqayntooda aanu u mataqaanaa muxuu ahaa dhiirigelino taasaanu doonayna mataqaanaa shaqaalahuna maadaama arrintaasi dhiijiyada ka bilaabantay shaqaalaha iyo agaasimayaashuna isla jaanqaadka inaynu xoojinno waxaasoo dhammi waa effortka dawladda ee aynu isleenahay systemskii dawladdana improve gareeya servicekii aynu qabanina aynu improve garayno haddaba waxaan rabaa inayd ka faa'iidaysataan innagu dhaqankeennu carruurta maxaa wanaagsan aynu ka qaadan karnaa ee loo daryeelaa ilaan ummad soo jirtay baynu nahay oo dhaqan soo lahayd maxaynu ka qaadan karnaa dhaqankeenna wanaagsanee carruurta ilaalintiisa daryeelkiisa diinteenna islaamku maxaa ay mataqaanaa arrimaha carruurta daryeelkooda ah maxaynu ka soo qaadanaynaa ee aynu dhaqankii ku lifaaqaynaa shuruucdeenna iyo wixeenna anigu waxay la tahay inaynu fahansanaano midda labaad haddaynu u nimaadno un shirka ka yar qayb galo iska tag macno ma leh commitmentkoo inu qalbigeenna ka yimaadaa waana inu noqotaa waxaynuu qabanayno bulshadeenna caadiyan waa run haddaad u shaqayso wasaarad waa run haddaad hay-ad u shaqayso waa run haddaad ka shaqayso meel kale ood isdirtay shaqada aad qabatay ajar baad ka helaysaa iyo wanaag haddaad ilahay dirtii u qabato intaa marka laga tago waxaan rabaa working groupka hal arrin aan u sheego working groupka dib baanu TOR-kiisa u reform garaynaynaa dib baanu siduu shaqayn jiray u reform garaynaynaa sababtoo waxay tahay shaqooyinkeenu dhan waxay iska noqdeen wax traditionaloo shirkaasaa jiray inagee marka shirka aad ka baxdana halkaasaa kugu dambaynaysa wixii lays yidhi iminka waxaynu doonaynaa shirka maxaa layska yidhi maxaa ka soo baxay maxaa la qabtay hal ilmood markaynu shir galno maalin marka bishii marka la galo coordination meetingka xataa laba carruur maalintaa ma caawina waa in outputkeenu noqdaa ilaan shir waa la isugu imin karaa war kala tegi karaa macno ma leh marka waa inaynu xagga kale waxaanu gacanta ku haynaa inaannu qabanno shirkii qaran ee arrimaha carruurta kaasoo inoo sheegi doonaa maxay wasaarad heblaaya ka qabanaysaa maxaa hay-ad heblaaya ka qabanaysaa I think intaasna waa inaa ugu muhiimsan mar labaad mar saddexaadba waxaan idinku mahadnaqayaa hay-adeenna halkan fadhiya fadlan maatrixka wasaaraddu soo dirtay ee ah maxaa la qabanayaa si maabinka aynu kala saarnana kaana waa in la soo buuxiyaa waa in inaga lafteennu iyagoonay mataqaanaa muxuu ahaa aynu marka working groupka la isugu yimaado aynu wax kala baranaa best practices waa inuu best practices kala baranaa mar labaad mar saddexaadba aad baad mahadsantihiin bacda taxiyat alislaam ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh madashan qiimaha badanna inagu kulmiyey mahadnaqa eebadabadeed runtii waxaan u mahad celinayaa wasaaradda shaqogelinta hay-adda UNICEF iyo Hargeysa University gaar ahaan qaybta social workerka oo ku soo sameeyey xog ururin aad u fara badan maantana halkan ku soo bandhigaya aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waana ku faraxsanahay inaan kulankoodan maanta goobjoog ka noqdo run ahaantii waxaynu wada ogsoonnahay in ay inagana inoo yimaadaan carruurta socdaalka ah ama socotada ahi iyagoo aad u tiro badan innagana ay inaga tagaan iyagoo aad u tiro badan labaduba waa arrin runtii dhibaatadeeda iyo xanuunkeeda leh waxaad dareemi kartaa in qof kastaaba uu jecel yahay inuu joogo oo ku sugnaado guriga waalidkii ama walaaladii uu la noolaado balse waxaa jirta laasim duruuf ama waxyaabo sababaya in uu qofkani ka tago hoygiisii oo uu aado oo u badheedho dhibaatooyin tiro badan oo markaa aanu garan karaynin wuxuu iskaga difaaco waxaa ilaahay mahadiya iyadoo kollayba ay sii socon doonto oo aan bil iyo 2 iyo 3 toonna lagu koobi karin arrintan waxyaabaha ay salka ku hayso waxaa haddana maanta sharaf ii ah in aynu u fadhino soo bandhigiddeedii waxyaabaha iminka la ogaaday kuwaasoo u baahan sidii wax looga qaban lahaa in la ogaadaa dhibaato badan ma laha laakiin waxaa dhibaato ah sidaynu wax uga qaban karnaa runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinayaa hay-adda UNICEF oo aan odhan karo dhanka carruurta inkastoo ay jiraan hay-ado kaloo wax badan ka qabtaaba waa hay-adda ugu awoodda badan ama ugu tamarta badan ee wax ka qabashada carruurta maanta qaranka Soomaaliland gudaheeda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa
maanta kulankeenu waxa uu daaran yahay waxa ay wasaaraddu samaynaysaa qorshe hawleed 3 sannadood ah 2018 ilaa 2021 oo lagu hagayo wasaaradda. haddaba waa maxay qorshe? waa inuu jiro wax qoran ama document qoran oo ulajeedkiisu uu yahay in la gaadho yool cayiman, midaasoo lagu gaadhayo waqti cayiman. marka halkan dokumentku inooga soo baxo deyn warqad ku qornaada mooyaane kaas ah ka shaqeynayna inta isku baasanaada hay'adaha inala shaqeeyana waxaan leenahay maanta laga bilaabana meeshan waxaan aan idin qabanaynaa annaga le waxaasan loo qabanaya inta aynu isla fahansanaana ayaa muhiim oo hadhow loo wasaaradii baa adkaatay oo annagoo wax la qabanayna ayayna diidinine haddii anigu bariis u baahan adigu tiraado nacnabaad u baahan tahay taas suurtagal noqon mayso. mudanayaal iyo marwooyin, marka ugu horreysa waxaannu idinka codsanaynaa cid kasta oo wada shaqayn dhow aanu leenahay annagoo u mahad celinayna haddana inay eegaan oo ka baaraan degaan maanta shaqada wasaaraddani waxa ay tahay iyo sidoo kale waxa maanta uu yoolka iyagu yahay ee aanu u baahannahay in nalagala shaqeeyo. bilaabo maanta ay bishu tahay 2018 bisha 9aad waxaa si toosa inoogu furan soo bandhigiddii istaraatiiji balaanka 5 sannadood ee ay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku yeelan doonto iyadoo ka turjumaysa baahiyaadka qaranku uu qabo wasaaraddan ee loo aasay. waxaan ku imi martiqaad rasmiya oo aan ka helay dawladda dalka Djibouti kaas oo ay igu soo martiqaaday wasiiradda dhigayga wasiirad Muumina oo ah wasiirka haweenka iyo qoyska. muddadii aan joogay dalka Djibouti waxaan la kulmay wasiirro dhowra oo runtii dhammaantood inta badan ay shaqadayda taabanaysay. waxa farxad ii ah inaan la kulmay 3 wasiir oo wasaaradayda oo kaliya u kala magacaaban kuwaasoo kala ahaa wasiirka arrimaha qoyska iyo haweenka, wasiirka arrimaha bulshada iyo wasiirka shaqagelinta. dhammaan waxaanu ka wada hadalnay waxyaabaha ay Somaliland u baahan tahay in laga taakuleeyo oo runtii ay kow ka tahay farsamada ama waxa la yiraahdo xirfadda oo aad ugu liita xagayaga. run ahaantii waxbarashadii baa waxay noqotay kulligeed waxbarashada sare ee aqoonta buugiga qalinka ah. sidaa darteed waxaan jeclaystay inaan kala hadlo inaan ka helo macallimiin isiiya tababar haddii ilaahay ka dhigo shaqaalaha wasaaraddayda si aanu job centerka wasaaradda ugu kordhino xirfado suuqa shaqada aad looga baahan yahay. run ahaantii waxaan odhan karaa haa dhammaan waxyaabihii aan codsaday intoodii badnayd way ii suura galeen markaan ka hadlo dhankii wasaaradihii aan la kulmay. run ahaantii waxaanay ballan qaadeen in ay igala shaqaynayaan sidoo kalena aan martiqaad ugu fidiyo dalkayga Somaliland oo ay iigu iman doonaan insha Allahu Raxmaan. waxaan ka codsaday xildhibaanada aan la kulmay oo ay ka mid ahaayeen 16 hablood oo xildhibaanada Jamhuuriyadda Djibouti in ay
iyagoo oo eegaya siyaasadda iminka geeska afrika ka socota in ay mooshin keenaan somalilan maxaa loo diidan yahay in la aqoonsado taas habluhu way iga aqbaleen runtii marka insha allah waan rajaynayaa taasna inay soo bandhigaan anigoo u soo bandhigay in Sheffield iyo meelaha la midka ah iyo Cardiff iyo ay xildhibaanadoodu soo bandhigeen oo mooshinka keeneen